si aad la socotaan shirkii ku soo dhammaaday caasimadda galmudug magaalada dhuusamareeb ay yeesheen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah oo ka soo baxay kumankeygii go'aankii lagu gaaray 15 bisha August inuu ka dhaco shirkii kale caasimadda galmudug ee dhuusamareeb kadib waxaan safar gaaban ku nimid magaalada Muqdisho safarkeenu wuxuu ku saabsanaa inaan arrimaha shirka iyo habsami socodkiisa kala hadalna dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhinacyada ay qusayso kale oo ka mid yihiin saaxiibada beesha caalamka arrimaha Soomaaliya runtii gacanta kule ama aad u daneeya iyo bulshada reer galmudugba meel wanaagsan iyo si fiican bay nagu soo arrimahaas oo naga afgaranay shirkiina wuxuu ku dhici doonaa waqtigii loo asteeyay ama loo ballamay waxaan u saarnay guddi qabanqaabo oo guddigii saddexaad ah oo qabanqaabada shirkan dhuusamareeb tiri maanta intaas kadib sidoo kale waxaan magaalada Muqdisho ka kulannay siyaasiyiinta ganacsatada bulshada qaybaheeda kala duwan reer galmudug oo aan kala hadalnay hawlaha ka socda galmudug dardargelintooda ugu horeyso arrimaha dekedda Hobyo iyo sidii go'aamadii lagu gaaray hore u socon lahaayeen dhammaan ilaahay fadligii meel fiican bay noo marayaan waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan tallaabooyin horumar leh oo la jaan qaadaya go'aamadii iyo arrimihii aan ka soo hadalnay oo la socdo intaas kadib maanta waxaan safar gaaban oo ku tagi doonaa ku bixi doonaa wadanka Turkiga hawlo shaqo waxaan ku maqnaan doonaa maalmo kooban hadii la yiraahdo muddadii ka horna waxaan tagi doonaa caasimadda galmudug ee dhuusamareeb si aan shirkii iyo arrimihiisii halkii ay marayeen uga sii wadno dhammaan dhinacyada shirkaas iyo sida uu quseeyay iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan waxaan ugu baaqaynaa in waqtigan la tixgeliyo wax kasta oo shirkaas dib u dhigi kara ama dhibi karana laga fogaado shirkuna uu ku dhaco sidii loogu talagalay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa intii ka soo qayb qaadatay iyo inta hadda u diyaarsan ay ka qayb qaadato waan mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.